بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. waxaan rajaynayaa inay noqoto muxaadaradii sagaalaad oo aan isku dayayo inaan ku gebagabayno darsiga kan. waxaynu joognay ciidamadii muslimiinta oo soo gudbay oo yimid dhulka falastiin. waxaanu isticmaalay qutus khita ama khuta ay leeyihiin waa ku cusub tahay qaab dagaaleedkii wakhtigaasi socday. wuxuu isticmaalay inuu geeshka ama ciidankiisa u sameeyo muqadama ama koox hore oo ka fog ciidan weynaha muslimiinta. kooxdaasi wuxuu ka dhigay koox badan. awal talaa'icda ama muqadamada ciidanku dad yar bay ahaan jireen. wuxuu ka dhigay ciidan aad u tiro badan. isla markaa ciddii ay la kulmaan waxa ay u qaadanaysaa in ciidankii oo dhami kan yahay oo aan waxba ka dambaynin. ciidankaa koowaad wuxuu u dhiibay markaasi ciidamadii masar wakhtigaa joogay qaa'idkii ugu caansanaa, ninkii bibros la yidhaahdo, oo ah markaa qaa'id muxannaka, dagaaladii qudus lagu xoraynayo hore ka qayb galay iyo kuwii crusadeska la yskaga celinayeyba. yacni nin 10 sannadood dagaalku soo jiraya. bibros oo ciidamadiisa wato markaa falastiin wuxuu soo galay baa la yidhaahdaa July 26 1260 miilaadiga, wakhti ku beegan. xuduudda markuu ka soo tallaabay waxaa ka soo daba tallaabay isnoo ciidan weynihii muslimiinta wata qutus oo ah madaxweynihii mamlakada muslimiinta ah. isagaa wata ciidamada laftoodii oo isna hogaaminaya. sidii la filayey, tataarkii markii ay la kulmeen meesha ghaza la yidhaahdo, tataar baa haystay, laakiin xaamiyo yar muslimiinta inta laga adkaaday baa meel walba koox yar la dhigaa. kooxdaasaa ka taliso aan cidina ku dhicin. ciidankan muslimiinta ee soo tallaabay laakiin waxay u qaateen inuu yahay intan bibros wato oo qura, inaan ciidan kale ka dambaynin. cusub runtii bibros, laakiin nin qaa'idoo muxanak u ahaa. kooxdii qaza joogtay fii khilaali suwaycaatin buu iyaga ku kacay, waa ka takhallusay. awal nasr ghazo qabsaday. waxaa soo noolaadatay yididiile cusub oo sheegaysa muslim baa wax jabin kara, waayo muddo 40 sano ku dhodhow muslim sii ordaya mooyaane muslim soo socda lama arag. marka kan ghaza buu qabsaday. kadib waxaa ka soo daba tallaabay ciidan weynihii muslimiinta uu qutus hogaaminayo. waqooyiga falastiin bay u soo kaceen. magaaladan casqalaan la yidhaahday yimaadeen. yaava ayay si tallaabeen. tolkaran bay dhinaca galbeed ka mareen. xayfa ayay mareen. caka ayay tegeen. caka waa imaaradii ugu xoogganayd ee masiixiyiintu markaa haysteen, ee uu heshiisyada hore ula galay. mar labaad buu heshiisyadii cusboonaysiiyey. ciidamo u diray iyo dad waa la wada hadlay, way soo noqdeen. ciidamadiisii qaar ka mid ah waxay u sheegeen, caki maanta sidii waayadii hore uma xooggane ma ku kicinnaa. qutus wuxuu yidhi naxnu laa nakhuuna alcuhuud, ballamada ma burinno. ballan baannu la gallay, haddaanay iyagu burin ballanka ma burinayo. sidii ballanka uu hore ula galay ayuu kula heshiiyey. dabeetana waa ka soo tallaaba.
warkii wuxuu soo gaadhay katbuqa nuwayn ninkii la odhan jiray. katbuqa waa ninka haysta markaa ciidamada shaam deggan ee mongolianiska ah, waxaanu isagu qaatay diinta kiristanka oo waa kiristan marka kan. markuu maqlay ciidamadaadii ghazo joogay waa la jebiyey, waabuu cadhooday. dabeetana wuxuu isugu yeedhay madaxdii. madaxda u imanaysa waxaa ka mid ah alashraf ilayuubi, kii ximis haystay. wuu la shiray, go-aan baa la qaatay in la socdo. koonfurta lebnaan buu u soo dhaqaaqay, waqooyiga falastiin buu soo galay, nahru urdun buu ka soo tallaabay, aljaliil sharqiya buu yimi. qutusna warkii ciidamadiisa sirdoonkii waa soo gaadhsiiyeen. waxaa loo sheegay inuu ninkii halkaa marayo. qutus wuxuu go'aan qaatay inuu ka horreeyo si goobta dagaalka uu ka dhici doono isagu uu u go'aamiyo. wuu ka soo horguuray, madiinatu naasira buu soo dhaafay, wuxuu yimi meesha loo yaqaano caynu jaaluud. caynu jaaluud dhul ahaan waa meel bannaan oo waasica oo buuro yari hareeraha kaga soo wareegsan yihiin, oo hal albaaboo qurho laga galo leh, oo buuraha dushooduna kayn ay tahay. marka waa bannaan hareeraha ka xidhan oo buuro iyo kayn dul saaran ay hareeraha kaga xigan yihiin, xagga waqooyina ka bannaan. wuxuu qaatay markaasi go'aan ah waa mowqica goobtan inuu dagaalku ka dhaco. goobtani waxaa la yidhahdaa mawaaqic taariikhiya u dhowday. xatiin tii uu jebiyey crusaydiska sheekhii la odhan jiray salaaxuddiin ilayuub 65 kilomitir bay u jirtaa. waaqacadii saxaabadu gashay ee yarmuukna 60 kilomitir bay dhanka galbeed ka xigtaa. waa meeshaa bannaan ee noocaasiya. ciidankiisa qaab buu u saleeyey ah muqadamadii uu watay bebros iyo ciidankiisa dhammaantood wuu qariyey. waxaa lagu qariyey kaymahan ku wareegsan buuralaydatan. saaxadii dhexana waa bannaan tahay. ciidamadii ay wateen tataarku markii ay soo gaadheen afkii hore ee meesha ayaa waxaa amar la siiyey oo ciidamaday halkaa marayaan. dhanka kale markaynu dib ugu noqonno tataarka, dowladdii weyneyd ee tataarka, waxaa dhintay ninkii hoolakay walaalahaayeen madaxweyne ahaa ee manko khaan la odhan jiray. dabeetana laba kale ay hoolaa ka walaalayiin oo ariiq bokaan nin la ydhaahdo iyo qablay baa isdilay oo madaxnimadii isku dilay. nin isagu islaamay oo barka khaan la ydhaahdo oo ina joojiya, jinkis khaan baa awowisna u ah, oo meesha ka odayaynayaana wuxuu raacay ariiqa buka. hoolaakana wuxuu rabay labadiisa walaal qablaay inuu meesha qabsado. hoolaaka ciidamadii qayb ka miduu shaam dib ayuu shaam kala noqday oo tabriis buu dib ugu laabtay. ninkanna wuxuu kaga tegey meesha. katabqa iyo ciidankiisiioo soconayaa meesha soo degay. katbuqa bay u akhriyaanbe. katbuqa ninkan la yidhaahdo waa nin aada u kibirsan. dhan marka laga eego waa rugcaddaa dagaalyahana. ninkani nin da'yar maaha, waa nin ugu yaraan 60ka dhaafay. waa nin 40 sano ku dhowaad dagaal ku jiray. jinkis khaan ciidamadii la soo bilaabay buu ka mid yahay. jinkis khaanna wakhtigan hadda la joogo ee caynu jaaluut ay dhacayso 34 sano ka hor buu dhintay. 34 sano ka hor ninka dhintay buu dagaalada kula jiray. dadminis waa nin 40 sano ku dhowaad janan goob dagaalee taagnaa weeyaan. waa khabiir yacni caskariya. laakiin markan isla weyni baa haysa oo dee weligii lama jebin.
umana haysto muslim baa wax iska celin karaba wuxuu ka cadhaysan yahay ghazadii laga soo tallaabay dabeetana isagoo cadhaysan buu meesha yimi halkuu soo degay muslimiintii reer miyiga ahayd iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka degganayd iyo shacabka ahayd markay ogaadeen qutus inuu dagaalku ka dhab yahay ciidamo fiicanna wato dagaalamayana waa la wada xamaasadooday baadiyaha iyo dhulkao dhan baa laga soo kacay waa la soo raacay waa kula jihaatamaynaa baa la yidhi dadkani waagii hore xaggay ku maqnaayeen markay kooxda yar ee tataarkii intay dhex bartay ilaa ghaza haysatay qudwo iyo imaam iyo cid ay ku daydaan baanay haysanin cid hoggaamisaanay haysanee shacab iska fara madhan bay ahaayeen markanse qudway arkaan cid ay raaci karaan baa u muuqata waa la wada dabagalay qutus marka dadkii muslimiinta u yimi ee beeraley iyo reer miyiga iska aha wuxuu arkayaa inaanay ahayn dad caskarinimo u tababaran wakhtiganina wakhti uu tababarra ka gaadhsiin kara ma aha dadkii oo dhan wuu qaatay laakiin wuxuu aqbalay ciidamadiisoo dhan inuu u tafriiqiyo ama ugu talagalo dagaalka iyo frontka inay galaan dadka kanina wixii logisticska inay iyagu ka shaqeeyaan oo dadkani hadday kuug noqoto hadday hubka safayntiisa noqoto hadday dadka buka iyo dadka dhaawacmo noqoto wixii shaqo gacmeed ee la dirayey hadday fardaha iyo soo daajinteeda noqoto hadday fardaha iyo geedasiinteeda noqoto biyo keenis noqoto wixii shaqo ee kale ayuu u xil saaray inay qabtaan ciidanku dhammaantiina inuu u baxo dagaalka keligii inuu galo iyo asawaad ilacdam tirada inay badiyaan oo meesha marka dee ciidan yari ka muuqdo iyo marka dhulkuba soo madoobaado waa dagaal nafsiya xarbi nafsiya bay ku haynaysaa cidda ka soo hor jeeda intaa waxa ka weynoo uu u diray silaaxii dhabta ahaa oo ah inay rabbi tuugaan oo baryaan dumarkii iyo carruurtii iyo wixii in wardiga loo hayo oo rabbi loo baryo subxaanahu wa tacaala dagaalkii isagoo halkaa ciidamadii isu safteena ay marayso ciidamadii muslimiintuna weli ay qarsoon yihiin oo aanu arkaynin ninkii la odhan jiray katbuqa ayaa cid marka ilaahay jebinayo ilaahay baa wasaa'isha hagaajiya nin ordayuun baa u yimi muslimiintii wuxuu yidhi waxaan ka socdaa saarimudiin aybak baa isoo diray saarimudiin aybak waa muslimiintii shaam lagu qabsaday ee dabeetana khidmada ka qayb gashay gaalada soo raacday miyaa la qasbay mise can tawcan buu u soo raacay allahu aclam oo markaas ka tirsan ciidamada war buu soo dhiibay ninkan sira uu faafinayo muslimiinta u gudbinayo wuxuu ku yidhi u tag ninka qutus la yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaa waxay soo diray saarimudiin aybak waxaad u sheegtaa marka koowaad ciidanka tataarku xooggii laga biqi jiray ma laha waayo wuxuu ogyahay in hoolaako qayb badan dib ula noqday midkaa horta ogaada buu yidhi taasi macnawiyaadkii dadka kor bay u qaaday tataarkii la yaqaanay inuu ka liito qodobka labaad buu yidhi alashraf ilayuubi amiiru xims oo markii hore soo raacay tataarka dib buu malaa isu canaanto wuxuu go'aansaday dagaalku markuu dhaco inuu jebiyo tataarka oo uu cararo ciidanka qaybtayada waanu la fuqaynaaye taana ku soo talagala bay yidhaahdeen qodobka saddexaad wuxuu yidhi tarkiibada ciidanka uu wato katbuqa maymanadiisa xoog badan ciidankii garabkiisa midig baa ka xoog badan garabka bidix saa daraaddeed garabka midig iska ilaaliya qutus umaradiisii buu u yeedhay maxay idin la tahay bay yidhaahdeen waxay yidhahdeen garan mayna inay tahay khudca iyo inay dhabtay taktiik innaga laynagu jebinaya inay tahay iyo inay run tahay garan mayno digtoonideennana waa qaadanaynaa sideenniina waa ku soconaynaa laakiin ma garan karno ninka kani gaalka ka yimi inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo waa 24 ramadaan 658 hijriyada habeenkaa wixii la tukan karayaa la tukaday waa la ducaystay subxii 25aad ee ramadaan ayaa waagu bariyey markaasaa amar wuxuu siiyey qutus
inuu ciidanku hogaaminayay Bebros ee muqadamadaha ay soo dhaadhacaan buuraleyda iyo wayse soo muujiyeen laakiin dagaalku waa xarb nafsiya psychologically baa laysu jebiyaa ciidanku mar ma soo wada dhaadhicin ee katiiba hurin iyo unugunug baa loo soo daayey hurinta iyo unugunuga loo soo daayey ciidamada rasmiga ah ee uu wato Qutus zayigooda kala nooca katiibaba dhar nooca midab nooca fardan nooca hub noocay sidataa dabeetana kolba hurin baa soo daadegta midab gaara leh katabqa waa yaabay katbuqa waxaan soo socday kala wada nooca ah dabeetana saarimudiinkii warka soo faafinayoo la socda saarimudiin baa warramayo wuxuu leeyahay cadceeddu markii ay soo baxday ayay soo muuqdeen ciidamadii muslimiintuna kooxdii ugu soo horraysay buu yidhi waxay ahaayeen koox midab casaana iyo caddaana wata midab guduuda iyo caddaan bay sitaan hubkuna waa u dhanye waana qurxa badan yihiin buu yidhi waxaad mooddaa inay carda askariya marayaan yacni in askartu markan ay damaashaadaysa ee dabaaldega ku jirtoo kale in la marayo ragga waa soo dhaadhacay saarimudiin wuxuu leeyahy wuu yaabay katbuqa markuu arkay ciidamada nooca kana waayo wuxuu yaqaanay ciidan muslimiin oo saddex miduuna qalcada ku jiroo dhufayska wax ka soo tuurtuura ama markaa la ysarka carara ama isa soo dhiiba laakiin muslim feedhaha soo dhigtoo midaba leh hore umu arag waxay yidhaahdaan saarimudiin aybak baa wuxuu yidhi katbuqa baa wuxuu igu yidhi runk man haadihi runk waa kelima farisiya bay yidhaahdaan oo lownka ah midabkan yaa wata buu leeyahay ciidankani waa kuma waa ciidama yacni firqadihii uu watay ama guutooyinkii ka socday muslimiintu calaamado kale noocile waa guutadii kuma ayuu weydiiyey wuxuu idhi guutada tani waa guuto u wato sanqara aruumi waa axadi umaraa'i mamaaliki albaxriyadii hore ragga ka tirsanaa weeyaan ee soo cararaya shaam yime dib loo soo celiyey waa janannada waaweyn ee ciidanka mid ka mid ah mar labaad baa waxa soo baxay buu yidhi buurihii ka soo daadegay haddana qole guul sidata dhar yalowa safar midab hurdiyaa dhar leh qole sidataa soo dhaadhacday haddana mar labaad buu weydiiyo ciidamadani waa aya buu yidhi wuu yidhi ciidankanna waa bilibaan arashiid bilibaan arashiid isna waa mamaaligtii baxrigaa nin ka tirsan waa qoladii shaam ka soo noqotay isaguna waa janan isna magacaale buu yidhi saarimudiin aybak wuxuu leeyay ciidamadii muslimiinta kolba guuto cusubunbaaba soo dhaadhacda oo midab cusub leh sidii ii weydiinayay markii dambe anaaba kala garan waayo anna magacyaan u samaystay buu yidhi oo kanna waa guutadii hebelumaan iska idhahdaa buu yidhi markaa guuta soo dhaadhacdaba xumaan sheegaa buu yidhi guutadii soo dhaadhacdaba magac buu u bixiyey markii bebris iyo ciidankiisa ay yimaadeen bannaankii ciidamada muslimiinta marka kan waxaa lagu dalbanayaa muusigo la garaacayo qalab durbaanadan iyo waxaan la garaacayo qalabkan iyo durbaanadan qaabka loo garaacayaa waxay sheegayaan dagaalka qaabka loo gelayo inaad weerarayso inaad sugayso inaad dib u guranayso inaad hore u soconayso inaad midigta xoojinayso inaad bidixda xoojinayso waxaasoo dhammi war uma baahna waxay u baahan tahay kooxda baamboydee dambe muusiga say u garaacdaa waxay sheegaysaa qaabkaad u dagaalgelayso waxaa loo garaacay markaasi muusigii ah dhaadhaca dagaalka hore u socda waa soo dhaadhaceen ciidanka dhammaantii Qutus baa maamula janankiisan koowaadna awaamirta muusiga dambu ka siinaya katabqaana waaba cadhaysan iyo waxay ugu muuqatay katbuqa inuu degdeg dagaalka u dhammeeyo dabeetana bikaamili geyshihii buu ku soo galay dagaalka ciidamadii tataarka iyo kuwii muslimiinta isku soo dhowaaday muusigadii iyo wixii baa dhacay
labada nin ee ciidamada kale hogaaminaya waa laba nin oo khabiir ah. Kana waxaan idhi 40 sano dagaal ku soo jiray, kanina ilaa dhowr iyo 40 bisba ku soo jira. waa laba nin oo rogacdaaya. dagaalkii wuu bilaabmay iyadoo tataarku xooggoodii oo dhan ay adeegsanayaan. muslimiintu dagaalka waxay ku tala galeen khudo saddexaba la soo siiyey Peppers inuu ku dagaal galo. ta koowaad inuu dagaalka bilaabo, laakiin aanu xoog hore ugu socon ee nimankaa in la daaliye uuna inuu daaliye ciidanka kan ayuu isagu dagaalka u soo galay. muddo markay socotay oo tataarkiina xooggoodii oo dhammi dagaalka soo galay ayaa muusigii dib loogu garaacay. waxaa la amrayaa inuu dib u gurasho sameeyo. dagaal seefeedoo socda inaad dib u gurataa khito fudud maaha. waxay yidhaahdaan taariikhyahanada qaarkood waa dagaalkii bershiya dagaalkoodii ugu weynaaye ugu dambeeyey waa qaabkay saxaabadu ku jabiyeen. waa qaabku u dagaal galay ciidanku hogaaminayey nucmaan ibnu muqarin saxaabigii la odhan jiray. muqadamadiisa halka Bebresna waxaa ugu jiray saxaabigii la odhan jiray alqacqaac ibnu camar atamiimiy. alqacqaac waa dagaalyahanadii muslimiinta taariikhdaba ugu weynaayo soo mara isagiyo khaalid. labadan saxaabi dagaalkay hogaaminayeen halkan qutus iyo Bibris oo kale isticmaalayeen. khudada dagaalkaasi waxay ahayd in la galo, muqadamadu ay dagaalka gasho, ay u beenguurto, soo jabto meel khatara markay ciidamada kale soo wada galaan, kuwa kale muslimiintuna hareeraha inay kaga yimaadaan. oo saasi dagaalkii bershiya loogu dhameeyey waqaabku u dhacay. nafsu shaakila buu damcay qutus inuu ka faa'iidaysto. marka waxaa la faray Bebris inuu dagaalka hore u qaado. markay ciidanka uu bahalka oo dhammi soo galaan inuu dib u gurto waa se khatar. dib u gurashada haddii lagu raaciyo lagaa dulboodo khatarteeday leedahay. adoo dagaalamay inaad haddana dib u socotaa. tiibuu dib ugu guulaystay, wuu u socday. maxaa la rabaa? waxaa la rabaa ciidanka tataarkao dhan in la soo geliyo bartan bannaan oo afkii yaraayee horaa la ysku haystaa. dabeetana dib siduu ugu guranayo ciidanka tataarkao dhan waxay soo gelayaan ishan bannaan ayaa la ysku haleelayaa. Bebris khitadii wuu fuliyey, dib buu soo gurtay. waa khita runtii u baahan ciidamo maahiriina oo farsamo yaqaana oo rugacadaaya. waa ku guulaysteen iyagoo aan jabin haddana inay dib u gartaan oo tataarka oo dhammi intan bannaan soo galo. halkaa markay maraysay ayuu amar bixiyey qutus in la garaaco muusigadii oo ah ciidamada muslimiinta ah inay dhaadhacaan ee dabadda joogay. intani muqadamadii qura bay ahayd. buurahan ku weegaaran meeshay saaran yihiin. dabeetana waxaa la soo dhaadhiciyey wixii ciidamo dabadda saaraa intoodii ugu badnay. tataarkii waxaa ku soo baxay wax cusub. awal waxay islahaayeen inta tan canka geliya, xooggoodii oo dhan intan bay ku isticmaaleen. ciidamo ixtiyaad iyo meel may dhiganin. iyagu dhammaantood dagaalka way ku jiraan. laakiin ninkan daaliyey waa kooxdii muqadamada wadato qura ninkii ahaa. waxaa soo dhaadhacay markaa ciidamadii muslimiinta ah oo dhan. weliba wuxuu soo diray koox iyadu waddada xidha. halkii la iska soo riixee koowaad iyadu xidha. meeshii waa la awda. dagaalku marka kan wuu isbeddelay. tataarkaa wax riixayey, muslimiintiina meeshay ku soo weegaarmeen. labada kooxood kooxunbaa hadda la waayaya. waayo kooxda gudaha ku jirta dagaalkoodu maaha haziimo iyo nasri maaha. ciidanku markuu ku dagaalamayo ama guulaysto ama jab iyo markay tahay nolol iyo geeri bes. waayo ninkan dhan walba waa laga xigaa. inuu dhinto iyo inuu noolaado wax ka dhexeeya ma jiro ciidanka tataarka. tataarkii waxay arkeen albaabkii dambena inuu oodan yahay. waxay go'aansadeen markaa dagaalkama dambaysa inay dagaalamaan. waxay dagaalameen dagaal oo aad u xooggan. sidii uu saarimudiin aybakuu sheegayey, maymanadii tataarku way la soo kacday maysaradii muslimiinta. rag xoog badan bay ahayn waa soo kiciyeen. qutus oo weli dusha ka daawanaya ayaa wuxuu arkay maysaradiisii oo lala soo kacay. dabeetana ciidan kaluu ku xoojiyey.
waa lala soo kacay marka lala soo kacay waxay ku dhowaatay inay waqacaddu isbeddesho oo ah tataarku dhankan hadday soo jebiyaan inay iyagu dusha wada maraan oo muslimiintu gudaha gasho oo khudadii muslimiintu ay dejisay iyaga inay dib ugu noqoto Qutus markaasuu go'aansaday inuu isna dhaadhaco isaga iyo ciidamo wuxuu watayna wuu soo dhaadhacay muslimiinta si aad baa loo cadaadiyey Qutus wuxuu go'aansaday markan inuu geeriyoodo wuxuu iska dhigay koofiyaddii birtee uu sitay dabeetana isagoo aan waxba xidhnayn buu dagaalka galay wuxuu galay isagoo qaylinaya oo weedha ah taariikhda caanka ku ah waa islaamaah isagoo la buu galay yacni waa islaamaa waa tollahi islaamkiiye isagoo leh ayuu dagaalka soo galay raggii dagaalamayay markay arkeen qaa'idkoodii ugu dambeeyey boqorkiioo dagaalka ku jira oo aan koofiyad dagaal xidhnayn oo dagaalkiina adag yahay waxaa isbrit ruux baa dib u gashay macnawiya oo dagaalkii dib bay u xoojiyeen waa iska dhiciyeen maymanadii soo riixaysay dib bay isaga dhiciyeen Qutus markuu dagaalka bilaabayba nin baa waran la egtay fallaadh la egtayoo faraskiisaa la dilay isagoo bilaa faras u dagaalka gala أحد القواد المسلمين baa uga daadegay faraskiisii oo le ya amiir الmuslimiin fuulkan wuxuu ku yidhi xooggaaga ama nafcigaaga muslimiinta ka hakran maayo fuushanow anugu saan baan ku dagaalgelayaaye isagoo aan faras wadan oo koofiyaddii birta ahayd sidan ayuu dagaalka galay kadib baa lala soo gaadhay fardihii reserveka ahaa qaar ka mid ah isagoo weli dagaalka ku jira waa la canaantay markii dambe waxaa la yidhi muslimiinta waad jabin gaadhay haddaad adiga lagu dili lahaadoo bilaa farasoo bilaa waxba haddaad dagaalka iska soo gasho oo si kastaa lagu dilayaaye muslimkaad jabin lahayd wuxuu ku jawaabay anigu haddaan dhintana jannaan geli lahaa islaamkuna rabbi aan dayacayn buu leeyahy aniga ii dayacmi maayo imisaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan geeriyooday buu yidhi aniga hortay oo qaa'idiin muslimiin oo la yaqaanay ilaahay baa le kan oo ilaashanaya dagaalkii marka kan wuu isbeddelay muslimiintii waa iska soo celiyeen maymanadii waa la soo kaceen xad baa laysla soo gaadhay katbuqaa laysula yimaado ciidamadii weerarka waday waxaa ka mida nin la yidhaahdo jamaaluddiin aquush ashamsiy jamaaluddiin aquush waa raggii iskaga soo hadhay naasir yuusuf markuu dagaalami waayey dimashq iskaga soo baxay ee ciidamada u ahaan jira oo ku soo biiray Qutus iyo ciidankiisa jamaaluddiin aquush ayaa katabqa madaxa ka gooyey katbuqa isagoo u haysta uun dee waaxid ka mida tataarka aan ogeynba inuu yahay ninkii meesha watay ayuu kow kaga siiyey sinaariyogii dagaalku markaa wuu isbeddelay waxay u muuqatay inay jabayaan laakiin marka kan meel ay ka baxaan ma jirto waa inay ama isdhiibaan ama madhaan hadday isdhiibaanna in la laynayo way garanayaan waxay go'aansadeen inay waddo furtaan xoog bay u dagaalameen dariiqii waqooyiga ee meeshu ka bannaanayd bay furteen dabeetana way ka baxeen waa yaaceen meel 20 kilomitir u jirta caynu jaluto beesaan la yidhaahda bay degeen muslimiintii waa ka daba timi Qutus wuxuu rumaysan yahay meeshan ama muslim dambe in la waayo ama tataar dambe la waayo uu ka daba yimi biisaan baa la isugu yimi haddana mu'arikhiintu waxay dhahaan dagaalkii hore ka kulul baa ka dhacay waxaanay ku dhowaatay mar labaad in muslimka lala soo kaco waa la itixaamay laakiin maadaama ay dad badanoo mukhlisiini ku jireen ay dartiina u dagaalamayeen ilaahay wuu sugay mar labaad bay keensatay baa la yidhaahdaa Qutus isagoo waa islaamaale inuu goobta galo iyadoo lala soo kici gaadhay ayuu haddana dib goobta u galay muslimiintii markay arkeen madaxdoodii oo dagaalka frontka kaga jirta waa adkaysteen iyana Qutus waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wuxuu ku ducaynayey
yaa allah unsur cabdaka quطusa cala tataar ilaahay oo addoonkan quduse u hiili ilaahayna subxaana wa tacaala waa uu hiiliyey ciidan aan 40 sannadood la soo jebin ayaa can bikrati abihim la tirtiray jeyshu tataar ee meesha marayay waa la mariyey muslimiintuna waa guulaysteen markaasuu qutus sujuuday isagoo wejiga dhulka ku xoqaya oo ilaahay subxaana wa tacaala u mahad celinaya dimashq 150 kilomitir bay u jirtaa qutus waxaa ka go-aana shaam inuu ka saaro dabeetana intuu ciidamadiisii iyo dadkii dhaawacmay iyo waxaan meydka aasanaya urursanayay ayuu waraaq u diray reer dimashq uu leeyahay biidni illaahi waan soo socdaa gaaladiina waa soo jebiyey magaaladii markay maqleen gaalkii baa la jebiyey dib unbaabay soo abaabuleenoo xaamiyadii meesha joogtay shacabkaa ku fillaaday iyana dimashq bay xoraysteen 30kii ramadaan buu soo galay dimashq oo dib u xora oo shacabkii caadiga ah uu xoraystay oo kuwii madaxda u ahaa uu tataarku meesha kaga tegay laayay oo qaar xidhxidhay oo meeshii oo dhan waa firdhadeen gaaladiina sida kagamuu hadhine qaa'idkiisii muhimka ahaa ee bibrus buu ka daba biray wuxuu u daba diray inuu shaam oo dhan xoreeyo qaadi dimashq ee ibnu turki la odhan jiray way casileen najmuddiin abaabakar nin la yidhahdana qaadaa laga dhigay muslimiintii waxay ciideen ciid alfitri ah farax iyo guulla ah ayay dimashq ku ciideen bibrus ciidankii wuu waday magaaladii xalab buu galay xalab xaamiyadii tataarkee joogtayna cagtuu mariyey dhowr toddobaad gudahood ayaa shaam oo dhan lagaga saaray nimanka tataar la yidhaahdo say u dhammaayeen waxaa markaa gacanta muslimiinta ku jirta libiya dacalkeeda ilaa iyo shaam oo dhan ayay muslimiintu qabsadeen labadii waddanna waa la ysku daray si aan fitnadii hunguridoonka ahayd u soo noqonin bibrus waa nin siyaasiyana ah umaradii isaga la soo dagaal gashay iyo kuwii ka hor yimi qaar ka mid ah kuwii ka hor yimi qaarkooda uu arkaya inaanay faa'iido lahayn hala dila buu yidhi wuu dilay qaar ka midana kii saarimudiin aybak la socday ee ashraf ilayuubiya yidhi waa kuu jabayaa iyo kaa wuxuu yidhi ximistaadii dib maamulo uga noqo mid calaaddiin la yidhaahdo ibnu beder ibnu lu'lu beder ibnu lu'lu ii haysan jiray muusile la'iimka aynu ka soo warrannay inankiisii kaana xalab buu u dhiibay xamaana iyada ninkii isaga la dagaal galee mansuur ayuu sideeda ugu celiyey oo isagu raggii jihaadka ka qayb galay buu ahaa katbuqa ninkii dilay jamaaladdiin aquush saaxilu falastiin iyo ghaza buu u dhiibay dimashq calamaddiin sanjar waa nin ka mid ah quwaaddii waaweynaaye mamaaligta ayuu isagana u dhiibay 26 shuwaal waa bil kadib caynu jaaluud ayuu dib u guuray oo ku noqday masar tataarka dagaalkiisii koowaad ee la jebiyo ee dhulkan ka dhaca caynu jaaluud waxay noqotay meeshii ugu dambaysay ee tataar xoog leh uu ka soo dagaalgeli karo qutusna kursigiisii iyo waxoo dhan wuxuu siistay inay muslimiintu guulaysato waayo guushan markii la gaadhayba raggii ay ishayeen ee dib loo noqday dibba u shakiyeeno isagu masar ma gaadhin meel dhexaa lagu dilay qutus 11 bilood iyo maalmo buu madax ahaa bibrus baa qabsaday dowladnimadii islaamiga ahayd isagaa 17 sannadood oo dambe xukumayey guulo waaweyn oo islaamiyana markii dambe soo hooyey
maxaa ka dhashay raadka ka dhashay muxuu noqday raadka ka dhashay wuxuu noqday kow muslimiintu inay bartaan rabbigooda inay ku noqdaan ilaahay hadday ku noqdaan in ilaahay uu heelinayo laba waxaa ka kacay dullinnimadii nafsiga ahayd ay moodayeen dii tataarka la arkay in la jabayo ama tataarku dad xadiid ka samaysan oo aan la jabin karin inay yihiin waxaa soo noqotay haybaddii dadka muslimiinta ah hoolaakoo dib uma awoodin waxoogaa yara uu mar xalab u soo diro weerar ku soo qaadqaaday ma inuu soo hungureeyo inuu xaggan dib ugu soo noqdo ciidamadii tataarka ee shaam iyo turkiya iyo falastiin joogay waa la tirtiray 146 sannadood tataar dib uguma soo noqonin tataar soo noqda waxaa ugu horreeyey 804 kii itixaanka ahaa ee taymuur link la odhan jiray islaamka sheeganayay markuu dib u soo noqday baa ugu horraysay 146 sannadood kadib caynu jaaluud waxay kaloo noqotay shahaadadii markhaatiga u noqotay dowlat almamaalik inay rag talin karo oo dowladda yihiin oo muslimiinta difaaci kara aahaarta ka dhalatay waxaa ka mid ah maadaama dimashq iyo baqdaad iyo qurطababa ay dumeen qurطabana 636 bay soo duntay 20 sano ka hor baqdaad qaahira waxay noqotay caasimadda cusub ee muslimiinta waa meeshay ka bilaabantay umudunyahay maanta tay taariikhda qaahire ugu fiicani waxay bilaabantay marka kan waxaa dhammaaday dowrkii ay lahaayeen nimankii ayuubiyiinta ee shaam isku ereeryan jiray oo dhan waxay bilaabeen mamaaligtu inay xoreeyaan kadib dowladihii yaraaye kiristanka ee meesha ku taxanaa ee hore ay ugu taag waayeen cimaadaddiin zanki iyo nuuraddiin maxmuud iyo salaaxaddiin ayuub iyo dowladahay u taag waayeen 664kii qaysariya magaalada la yidhaahda iyo xeefa ayay xoreeyeen 665kii saft iyo qolayqela fii turkiya ayay xoreeyeen oo waxaa la yidhaahdaa 40 kun oo askari ciidan ku dhadhow haytham kii armaniga ahaa boqorkii la socday hoolaako ee baqdaad wax ka galay waa meeshiisii waxay ka soo qabteen haniimada bay yidhaahdeen ninkaa meeshiisa laga soo helay ilaa muslim oo dhan buu soo dhacaye ciidanka haniimada markii loo qaybinayay looma miisaamina waa loo weel daray baa la yidhaahdaa yacnii nin walba masaftu waxay qaadaa loogu riday xooluhu sitay ay marka dambe laga qabtay 666kii wuxuu bibros dib u furtay yaafa meeshan la yidhaahdo 667kii imaaradii kiristanka ugu horraysay ee caalamulislaam ay ka furtaan buu dib u xoreeyey antakiya meeshan la yidhahdo turkiga ka tirsan waa bohmond isna waa kuwii baqdaad wax ka gubay buu ka mid yahay bibris markuu dhimanayey mudunkii hareeraha ku tirsanee dowladaha yararee masiixigaa kama hadhsanayn ilaa iyo caka iyo suuriya sayd iyo طarablus iyo bayruut baa ka hadhsanaa kuwaana shaamna ama masarna waxaan u jeedaa suuriyana tarsus iyo laadaqiya ayaa kaga hadhsanaa 684kii ayaa طarablasna almansuur qalawuun oo isna ka mida mamaaligtaa furtay 690kii ayaa inankiisii alashraf khaliil ibnu qalawuun isna wuxuu furtay wixii imaarad hadhsanayd yacnii 32 sano caynu jaaluud kadib imaarad masiixiga kama jirin shaam wixii dowlad yar ka tirsanaay oo dhan way ka takhalluseen intan waxaa ka weynoo u baahnaa inaan si dhaba uga warramo laakiin maadaama muxaadaraadkani dheeraadeen aan dul marayo kuwan aan ka warramay waa jeeshkii muslimiinta ee ciidanka ahaa ciidan kaley muslimiintu leeyihinoo kuwaa ka xoog badan ciidan la yidhaahdo ducaad oo iyagu quluubta dadka furta aan dhulka furanin taariikhda dunidana dib u beddela marka laga reebo shaam iyo masar intii kale tataar baa haystay goormay islaamka ku soo noqdeen waxay ku soo noqdeen iyagana rag baa u xidhxidhay quluubta reer jankis khaan inay furtaan oo ay dowlado islaamiya ka dhigaan waxaa bilaabmay
Genghis Khan wiilashiisii inta badan dagaaladay ku dhinteen iyo waxa kan kuwa awowga u ahaaba islaamku ku bilaabmay markaa waxaa islaamay barka khan baatuu la walaalayay ninkii yurub furtay aabihii waa odagii raashiya furtay jiji la odhan jiray jijawayna Genghis Khan baata iyo barkaa walaala ah oo ilmo jijiya barka wuxuu noqday ninkii ugu horreeyay islaama sida taariikhyahanada badh qabaan waayo taarikhyahanada badh kale waxay qabaan barka wuxuu ka tirsan yahay aalusi dahabi yacni markuu dhimanayay Genghis Khan waddannadii xukumayay o dhan wuxuu u qaybiyey afartii inanay ugu waaweynaaye u dhalay marka aalusa dahabi raashiya iyo waxa ku xeeran ee ka hooseeya oo dhan waxa la siiyey baatuu inuu xukumo baatuu markuu dhintayna akhiiran waxaa qabsaday barka khan waa ninkan aan ku leeyahay waa nin muslim u noqday oo alimaam albakharzi sheekha la odhan jiray waa sheekh muxaditha imaam dahabi wuxuu leeyahay rajul muxaditha oo zaahida oo ahariya oo caalima buu ahaa mararka qaarkood laakiin suufinimona wuu qabay oo simaacan xatradana waa yaro dhegaysan jiray salaatu tasaabiixna jamac buu ku tukan jiray bay yidhaahdaan laakiin waxaa nin caalimo laga haybaysto raggaa iyo ragay ka mid yihiin ayaa dad badan quluubtooda ilaahay ku furay iyagu markaa alqabiila dahabiya bay ahaayeen barka khan markuu muddo waday isaga wakhtigiisii dadku ma wada islaamin laakiin 50 sano kadib dowlad islaamiya weyn bay noqotay qabiilka labaad waa Jagtai waa ninkii ugu adkaa ee uu dhalo Genghis Khan ee madhabkii alyaasiq fulinayay oo muslimkana la colahaa qoysaskiisana qayb ka mid ay kristanka ku xidhnaayeen aad buu muslimka col ula ahaa wakhtigiisii wuxuu mamnuucay xoolaha in la gowraco halkaa laga dalooliya buu yidhi muslimkana bakhtigaa cunaysaa buu ku xukumay wuxuu mamnuucay wakhtigiisii in webiyada laga weysaysto iyo dhulkaasi oo dhan buu ka mamnuucay nin aad wax muuqu ahaa wuu dhintay isaga qoyskiisii waxa dhaxlay mubaarak shaah daa'irat almacaarif iyadu waxay sheeganaysaa inuu yahay ninkii ugu hor islaamay ee qoyskan ka mid ah waxaan filayaa 644 meelaha maya 664 inuu qabsaday isaguna madaxnimada meesha yaa ka mid ah islaamay Holaako waa ninkii Baqdaad dumiyay in ka warranay inankiisii Axmed Takwadaar baa islaamay oo qabsaday meeshii kadib inanu adeeru yahay oo kristana ku kacay 2 sano markuu xukumayay baa la dilay qolo kala qabsatay laakiin waqti yar kadib haddana kii isaga ku kacsanaa inanu dhalay abaqa inanu dhalay waa Ghazan ibn Arqon ibn Abaqa ibn Holaako ayaa islaamay walaalkii baa isna islaamay oo ligato la odhan jiray iyana Persia dib bay islaamka ugu noqotay markan taariikhda dib ugu noqdo waxaan uga jeedaa inaan idin tilmaamo jeeshkan wax jabiyay jeesh aan ahayn oo kale ayaa iyana quluubi naas furtay oo inta badan dowladihii bariga xigee dambe aynu soo dhaafnay ciidan laguma furanin ee waxa lagu furtay maxay sabiili dacwa ayaa lagu furtay dabeetana dib bay u soo noqdeen dowladda muslimiina waxaan jeclahay markaa inaan soo koobo wakhtigaa dheeraaday waa dad badan oo muslimiina oo xataa dowladda u shaqeeyey qaar muslimiinta wax tare iyo qaar dhibaba way lahaayeen maalan maxmuud yalwaaji ninka la odhan jiro oo kale okday oo ah ina Genghis Khan oo boqortooyada qabtay ayaa wasiir ka dhigay dabeetana wixii magaalo muslimee la dumiyo dhan isagaa dib u dhisay Bukhaara iyo Samarqanda iyo Khawaarzm iyo Khajanda iyo magaalooyinkii waaweyn ee muslimiinta oo dhan maxmuud yalwaaz oo wasiir u ah dowladdaasi baa dib u dhisay muslimiintuna ay aad uga mahad sheeganayeen waxa ka mid ah
saddexinana uu sii dhalay mascuud alawal mascuud aلthaani mascuud raabic ilaa laga gaadhayay oo iyaguna dib muslimiinta wax ugu taray cagsigooduna waa jireen qaar bidhi qaatayaal ah xabash camiid iyo gabadh faatimo la odhan jiray iyo mid wasiiruhu ahaa cabdiraxmaan la odhan jiray iyo koox kale oo bidhi qaatayaal oo sii gumaaday muslimiintana waa jiraan laakiin waxaan uga jeedaa un ama ha ahaadaan maamulladii meesha ka jiray dad muslimiinoo fiicanoo ka soo baxay ama ha noqdaan culammadii muslimiinta meesha ku hadhay maalan asheekh bakharzigaan sheegayaa sheekhiisii isagiiyo nin kale sacduddiin bakharzi iyo nin kale uu soo wada diray waa niman suufiya ah dariiqadii waa la soo diray isaga waxaa la amray maa waraa'a nahar inuu tago bukhaaruu soo galay oon wax nooliba joogin markaasuu iska dul degay xer buu ku dul sameeyey muslimiintaa dib ugu soo noqotay ilaa iyo ay magaalada dib u camirantay oo haddana tarabi nin la yidhaahdo wadaad suufiyaa baa isna haddana dib u sameeyey tawrad waxoogaaya oo wadaad kalena kaxaystay dabeetana wuxuu yidhi ruuxaaniya waxbaa ila socda waynu dagaal gelaynaa dad badan buu dagaal geliyey tataarkii baa baqayba oo is yidhi waa dhab malaa kan ruuxaantan iyo waxaanu sheeganayaa dagaalkii markuu dhacay kooxdii hore waabay la kaceen fallaaxiintii iyo faashishkoodii iyo waxoodii bay ku jiidheen laakiin dee markuu dagaalku dagaal noqday baa la waayey ruuxaantiina dabeetana fallaaxiintii muslimiinta ahayd baa dib loo gumaaday magaaladii baa la damcay in dib loo baabi'iyo maxmuud yalwaaj ayaa boqortooyada dib ugu cararay waa jagtaay ka raba inuu meesha baabi'iyo oo mar labaad badbaadiyay yacni waxaan uga jeedaa raggii idaariyiintaee dowladdaa ku biiray dad badan oo ka midina madaaristii islaamiga ahayd iskuulladii islaamiga ahayd magaalooyinkii islaamiga ah wixii muslimiinta dib bay u soo celiyeen raggii culammada ahaana quluubtii dadkii muhaajimiinta ahayd bay furteen ilaa taarikhyahanadu ay yidhaahdaan lama arag ummad la jebiyey oo kii jebiyey uu diinteeda qaato taarikhda waxaa la yaqaanaa ummad la jebiyey oo qaadata maxay ninka wax jebiyey dee diintiisa laakiin ummad wax la jebiyey oo kii jebiyey ka xoog batay haddana uu iyaga diintooda qaadanayo dariskan oo dhan ama darsiga kan sidaa u taqaaniin dantan ka lahaa hal wax bay ahayd oo ah taariikhdu maanta may bilaabmin haddii maanta muslim jabay waayo horoo la jabay baa jirta haddii maanta dad gaajoodeen taarikhdii oo dhan kama warrami karaya masar waqt dadkii la cuni jiraa jirta gaajo daraaddeed casrigan aan hadda ka sheekaynayo 100 sano ka hor masar dadkaa la cuni jiray xataa dhakhaatiirta dhakhtarradu waxay khatar galeen dhakhtar baa la odhanaya kaalay dad soo dawee shawsagaa la rabaaba in la bireeyo waa la gowracan jirin markuu guriga soo galo xadkaasay gaadhay hadday gaajo tahay hadday baahi tahay hadday dagaal tahay hadday colaad tahay wax ka foolxun baa soo maray laakiin intaba dad baa ilaahay gacantooda dib ugu nooleeyey laakiin waa markay qaateen maxay asbaabta saxda ah asbaabta saxda ah qotos waxaynu soo marray asbaabtuu u maray inuu guulaysto ayaynu soo tilmaamnay sheeko ugamaan jeedin ee waxaan uga jeedaa in dadka muslimiinta ay dib uga cibro qaataan waxaan soo marray dhul badan oo muslimiinaan tilmaamay oo dacwo lagu furtay xoogba laguma furanin kii wax dumiyoo jooga ayaa isaga diinta lagu daray sanawaad bay qaadatay inay dib dowlado islaamiya u noqdaan marka waxaan idiin sheegayaa dariiqu waa furan yahaye si fiican u qaada wsala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wasaxbi waslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin